maalinkii shalay ahaa waxaan u tiri gudoomiyaha baarlamaanka anoo ka codsan tixraacahaya codsigaygii waxaan idhi intaan la furin dooda golaha waxaan rabaa khudbadaydan inaan akhriyo waayahay buu yidhi isug ii diyaar garoob 10 ilaa 12 inta u dhaxaysa waan u diyaar garoobay waxaan diyaarsaday oo soo dhaweystay khudbadaydan golahaygii sharafta badnaana waa wargeliyey si ay u soo diyaar garoobaan wixii ay qabteen jawaab ayaan weynay kadibna waxaanu na soo gaartay goluhu ma tegi doontaan waa la akhrin doonaa eedayntiina go'aanna waa laga gaari doonaa arrintaasi waxay noqotay wax la yaabo sidee ku dhici kadhaa anoo ah prime ministerkii dalka anoo xukuumaddaydii mooshin laga keenay anoo muwaadin ahaan xataa xaq u leh haddii la eedeeyo inaan go'aan layga gaarin in aan hadlo maahe sidee ku dhici kadhaa xukuumadda dhan ee Soomaaliya oo constitutionalka oo maanta taagan inta mooshin laga keeno in la siin waayo fursadda ah inay istifaacdo